السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داود يالكوسو لوادا برامج كدعوين كعالم كي صوماليا oo toddobaadkii mar xilligan oo ka daawataan barnaamijka toddobaadkan waxaan ku lafaguri doonaa laba qodob oo muhiim u ah arrimaha caalamka oo si aad ah looga hadlay arinta koobaad ayaa ah dagaalkii u dhaxeeyay Pakistan iyo Hindiya oo noqday dagaal ay ku fashilmeen reer galbeedka hadii ahaan lahayd quudaha waaweyn ee hubka soo saara hadda Pakistan guushii ay ka gaadhay dagaalka koobnaa ee la gashay Hindiya aan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa waxa laga filin karo sidoo kale qaybaha dambe waxaan ku eegi doonaa heshiiska la sheegay inuu dhexmaray Xuutiga iyo Mareykanka barnaamijka sida aad u jeedaan waxa ay la qayb galaya Mustafa Wasama Sabriye oo ah aqoonyahan dhalinyaro ah markaana ka faaloodo arrimaha caalamka iyo Soomaaliya sidoo kalena bartay in cilmiga xiriirka caalamka markaana si aad uga hadla arrimaha caalamka iyo Soomaaliya Mustafa ku soo barnaamijka ma sha مصطفى صاحبك برامجك ألعبه وحو نقل قيب قاطع رمها عالم كسيجارة مصطفى إن ما أنتو حن إجينا إن دجالك إن سيدل كديس وقت حقر حي إن ودمدا إن باكستان هندية بل سكوبان إن أرنت هذا أم فلقين هذا محيطها runtii aad cabsiso ma santahay wadanka Hindiya iyo wadanka Pakistan waa laba dal oo daris ah oo si kale hadii la dhaho waa laba dal oo isku midab ah oo isku jinsi ah laakiin kala go'ay 1947 ayaa wuxuu sababay laba dal inay kala noqdaan xiisadii ugu dambeeyay waxay dhalatay bishii Abriil markii la sheegay 20 qof oo dalxiisayaal Hindiya in lagu dilay gobolka Kashmir qaybta ee maamusha Hindiya taasina wixii ka dambeeyay labada dal hanjabaad ayay isku marinayeen laakiin labadii maalin u dambeeyay waxa dhacay duulaan isku adeegsanaya diyaaradaha droniska iyo gantaalada taasoo ay bilowday dawladda Hindiya ayaa weerarka bilowday oo gobolka Punjab iyo sidoo kale waxay weerartay gobolka Kashmir qaybta Pakistan oo ay ku dileen dad ku dhow 30 qof laakiin jawaab celintu waxay noqotay in Pakistan ay soo riday 6 diyaaradood oo kamid ah diyaaradaha jiilka afraad oo Faransiisku sameeyay taasoo fadeexad weyn ku noqotay wadamada reer galbeedka siiba Faransiiska taas waxay sababtay in lacag ku dhow 1 bilyan ama 970 milyan lacag ku dhow in laga qasaariyay Hindiya wadan iska sabool ah marka dagaalkaas ayaa hadda la isku adeegsanayay drones ayaa hadda ka socda Hindiya iyo Pakistan waan gartay sida sheegtaba waxaad moodaa in Hindiya ay ku qasaartay maalgelinta dhanka tiknoolajiyada ciidanka oo markii hore in warbaahinta reer galbeedka iyo tan Hindiya aad u bumburinayeen inkastoo Pakistan ay leeyahay howlaheeda si hoose u dhameysatay markaad fiiriso in hata heshiiska xataa waxa leeyahay oo Faransiiska iyo Hindiya oo ay rabtay in diyaarado kala dheeri soo iibsato dib u eegisi ku sameynaysa markaad fiiriso Pakistan waxay soo bandhigtay labadii maalin soo dhaafay diyaaradahaasi tiro badan gaar ahaan Rafael oo ah diyaaradaha Faransiisku lagu farsameeyo oo aad loogu tashan jiray dagaalada caalamka in la fashiliyay iyo sidoo kale droonkii Israa'iil markaad fiiriso maxay ka bedeli kartaa istaraatiijiyadii awoodii reer galbeedka ee Pakistan ka aaminsanayeen iyo hadda qaabka uu soo shirtagtay runtii labadii maalin u dambeeyay waxaad u qabtaa Pakistan inay taageero ka helaysay quwadda labaad ee adduunka oo China nidaamka difaaca ee cirka ee Pakistan wuxuu taageero weyn ka helayay China taasoo fududeysay maalintii koobaad weerar ku dhacay inay hawada xiraan weerarka jawaab celintiisuna ay noqdeen in diyaarado iyo saldhigyo military oo Hindiya ku yaala la weeraray taasina waxay sababtay in wadamada reer galbeedka siiba Faransiiska oo aad Hindiya u taageerayo oo malaayiin dollar diyaarado jooga ka iibiyay in diyaaradii u shaqeey waayeen oo iyo koox xarumihii iyo meelihii ay joogeen lagu duqeeyay lagu baabi'inay taasina waxay sababtay in suuqyada caalamiga ah iyo wargeysyada militariga ka hadla in hubka siiba Shiinuhu uu yahay hub casri ah oo mudan in la iibsado maadaama Shiinuhu uusan qayb ka ahayn ilaa dagaaladii ugu dambeeyay dunida ka dhacay waxay cusub ay Chinese hubkiisu u bariyay taasina xisaabta wadamada reer galbeed inay ku baraarugaan in khatar ku tahay waxa ka socda wadamada Pakistan iyo Hindiya Pakistan Hindiyana waxa uu qabtaa inay aad uga walwalsan tahay labadii maalin ugu dambeeyay wixii socday taasina waxay sababtay in ra'iisul wasaaraha Hindiya oo booqasho kadiisa ku joogay Saudi Arabia booqashadiisa uu soo gabagabeeyay si uu u fargeliyo xaaladda ka jirtay wadankiisa Hindiya iyadoo wadamada quudaha reer galbeedka ah ay aad u qabteen in si dadban ula safan yihiin wadanka Hindiya
halka wadanka China oo wadanka labada quwada weyn oo qabtay inuu asaguna la safan yahay wadanka Pakistan wadamada kale ee islaamka sida Iran iyo Pakistan iyo Turkiga waxay u qabtaa inay dhexdhexaad ka yihiin xaaladda oo madaxweynaha Turkiga Erdogan waxa uu sheegay inuu rabo inuu dhexdhexaadiyo labada dal Hindiya iyo Pakistan oo xiriirada ganacsi iyo dana dhaqaale labadaas dal oo kale yahay marka difaaca laga hadlayo Pakistan inkastoo ay soo bandhigtay awoodeeda dhanka ciidanka oo Shiinaha ah waxa leeyahay reer galbeedka gaaraan Hindiya marka laga hadlayo maysan filayn arbaaxid ay kala kulantay Pakistan waxa leeyahay waxay rabtay kaliya markii hore dagaalkan waxa bilowday Hindiya bilowday sida aad sheegtaba oo iyada markii hore weerarka ku hormartay balse jawaabta ay ka filaysa Pakistan waxay islahayd waxay noqon doontaa inay gantaalo kugu soo duqeyso ama waxyaabo kale sidii hore u dhici jirtay balse maysan suurtagelin in arrinta kale yaabka waxay tahay diyaaradihii iyagoon weli hawada Pakistan soo gaarin oo hawada Hindiya jooga in lagu burburiyo bartoodii taasina waxay keentay in fashil ay ku noqoto in saddex diyaaradood oo sidaa sheegtay 288 milyan jooga in macnaha la soo rido taasina dabarjab ay ku noqotay iyo drones kale oo ay maalabaadku isku dayday oo ay doonaysay inay qalqal geliso hawada Pakistan markaad fiiriso Pakistan iyo Shiinaha inkastoo la leeyahay xiriirka u dhaxeeya Hindiya iyo Shiinaha aad u xun yahay sanadkii horeba in Hindiya iyo Shiinaha xadka maadaama xad ay wadaagaan dagaal dhex maray bas markaad fiiriso in Shiinaha awoodda hadda uu caalamka uu la yimid soo lama dhihi karo waxay qalqal gelin doontaa ama dib u habeen in lagu sameeyo hubka reer galbeedka ugu horeeyay Mareykanka iyo xataa Ruushka laftigiisa diyaaradaha laga soo riday oo u sameeyay nooca runtii Cabdicasiis Akjole waa maasanta waa sax Shiinuhu inta badan dagaalada adduunka qayb kama ahayn wadan iska nabad ah oo tiknoolajiyada laakiin hadda waxa uu qabtaa inuu tiknoolajiyada iyo dagaal weyn isku diyaarinayo nidaamka difaaciyada oo Pakistan hadda haysatana waa nidaamyada ugu fiican adduunyada sidoo kale Pakistan waa wadanka kaliya ee muslim ah ee haysta hubka nuclearka ee wax kumaada iyadoo Hindiya sidoo kale nuclear haysata marka waxa dhici karta cabsi ah in xataa mustaqbalka hub nuclear la isku adeegsado haday xaaladdu faraha ka baxdo laakiin sida la qiyaasayo dagaalku wuxuu ku ekaan doonaa dagaal drones oo lagu isku adeegsado maxaa yeelay wadamada baritaaraya waxa uu qabtaa inaysan rabin inuu dagaal saddexaad dunida ka dhaco maxaa yeelay adduunku wuxuu la macaamilayay dhibaatadii uu ka soo gaaray dagaalka Ukraine oo dana dhaqaale badan dhaqaalihi adduunka saameyn ku yeeshay in haddana culays kale oo Hindiya iyo Pakistan yimaado taasi dhibaato u keenaysa warbixinada ugu dambeeyay oo Reuters ka akhrinayay labadii maalin ugu dambeeyay waxa saameeyay duulimaadyadii koonfurta bari Asia wadamo duulimaadyadii Hindiya iyo Pakistan lagu kala tagay diyaarado badan oo caalami ah oo uu saameeyay taasina waxay saameynaysaa dhaqaalihii labada dal Hindiya iyo Pakistan iyo wadamadii saaxiibada la ah marka waxaad u qabtaa in la isku boolo xafteenayo laakiin hadda aysan dagaal toosa labada wadan ay geli doonin inkastoo labada wadan horay dagaalo saddex dagaal u soo dhex mareen sanadkii 1947 65 iyo 71 muranka ugu weyn labada dal ee ka dhaxeeyana waa gobolka Kashmir waa gobol ay degaan laba qowmiyadood oo muslim iyo hindu ah marka laba qaybood u qaybsanaya markastana waxa ka dhaca loolan diimeed oo labada qowmiyadood u dhaxeeya taasina waxay sababtaa marka qaar in dawladuhu ay xuduud ku diriraan marka waa laba xuduud oo xuduudaha ugu khatarta badan adduunyada markii laga tago xuduudda waqooyiga Korea iyo South Korea Hindiya maadaama isku daygeedii labada mar ay ku fashilantay hadda maxaa xigo ma la dhihi karaa in Hindiya difaaci gashay oo lagama yaabo in dagaal kale ay soo qaado weli lama saadaali karo waxa Hindiya ku dambeyn doonto laakiin weli weerarku uu sii socdoona oo Hindiya ma quusan oo laakiin hadda waxaan u maleynayaa maalmaha soo socda in wajigu uusan dagaal u keen doonin oo wada hadalka Turkiga dhagjeelaq loo sii doono maxaa yeelay Hindiya waa wadan faqri ah oo dhaqaale fara badan u sanaysan diyaaradihii uu qarashka badan geliyay 1 bilyan lacag ku dhow ayaa laba maalin ka khasaartay marka adduunku dhaqaalaha ayaa wax kasta ka muhiimsan aakhirkana Hindiya iyo Pakistan wada hadal ay arintoodu ku dhamaan doontaa muddadii ugu dambeeyana waxay ahayd in wada hadal la sameeyo muddadii bishahay markii dadkan la dilay laakiin ma suurtoobin taasina xisabtay in dagaal uu qarxo laakiin Hindiya iyo Pakistan khibradda loo leeyahay waxa way aakhir in wada hadal arinta lagu soo dabaali doono maxaa yeelay labadaba nuclear ay ku hubeysan yihiin adduunkuna ma rabo inuu dagaal nuclear la isku adeegsado marka ilaa hadda wuxuu ahaa dagaalkii ugu horeeyay ee laba dal ee diyaarada drones oo casri ah la isku adeegsanayo waan gartay in markaan ka hadalno in dagaalkan iyo wadamada islaamka maxay ka baran karaan oo inta badan wadamada islaamka waxay aad ugu xiriireen difaacyada in reer galbeedka hadii aan leeyahay Mareykanka iyo wadamadan Yurub
difaacyada soo saaraan oo ugu horeeya Faransiiska oo kale diyaaradihiisa aad loo buunbuunayay Shiinaha inta badan hubkiisu caalamka sida hadda labada maalin usoo baxday maasan lama filayn oo ama buubuunin oo hore warbaahinta loogama arkin waxtarkiisa lama ogaan balse waxaa la ogaaday dagaalkii Hindiya iyo Pakistan marka sidoo kale saa sheegtana in dagaalkii Ukraine waxaa lagu kala bartay awoodaha reer galbeedka iyo reer bari ee Ruushka iyo wadamada reer galbeedka oo la ogaaday awooduhu halka gaarsiisan yihiin hadda Shiinaha markii la arkay habka uu soo baxay casriga ah wadamada islaamka maxay kula tahay inay ka baran karaan runtii Shiinuhu cashir uu bixiyay wadamada islaamkan inta badan quwadoodu waxay ku tirsan tahay wadamada reer galbeedka wadamada khaliijka ugu horeyso Turkiga hadda waxa uu qabtaa inuu waxyaandaabka reer galbeedka ka baxay oo isagu hub casri ah iyo duni gooniya sameysanaay laakiin in Mareykanka iyo reer galbeedka lagu xubsiito oo Shiinaha la aado taasi fursad waxay u tahay wadanka China oo dhaqaale fara badan hub ah ka helayo shalayto warbaahintii adduunyada iyo wargeysyadu waxay falanqeynayeen markastoo dagaal dhaco waxaan ogeyn dagaalka Syria ka dhacay waxa aad loo barto hubka Turkiga iyo Ruushka suuqyo badan ay yeeshay diyaaradii waaweynaa sidoo kale dagaalka Ukraine waxaa la barto hub cusub oo Turkiga iyo diyaaradihii oo marka maanta waxaa la baranayaa hub cusub oo China inta badan qayb kama ahayn dagaalada dibadda ee ka dhaca sida Mareykanka oo kale Mareykanku waa wadanka ugu badan ee dagaalada dibadda ka faa'iida dhaqaale fara badan ka sameeya laakiin China maanta wuxuu soo bandhigay tiknoolajiyad horeysa oo laga marka wadamada islaamka waxa uu qabtaa hadda inay soo baraarugaan inay China wadamo badan suuqa China waxa uu ka fudud yahay ma shuruudo badan kuma helaan dhaqaalahan oo kala dhaqaale badan ma helo haddana inta badan wadamada Shiinuhu dagaalada dibadda ah saameyn badan isa laga military ma jeclaan marka hubkooduna hub iska qiimo jaban oo hubka Mareykanka marka waxa uu qabtaa Shiinuhu iyo maanta fursad weyn dunida tusaayo bandhig عرب بندقيد واي سيد وحي سوريا كدعي أيا باكستاني ودمada Hindiya marka fursad ay u tahay wadamada islaamka inay ka faa'iideystaan oo ay ka baxaan xeyndaabka madaxweyne Trump markasta oo bariga dhexe tago wadamada islaamka wuxuu ugu hajabaa inuu lacag waaweyn ka qaato isagoo u sheegay inuu waardiyeeyo marka inay xeyndaabkaasi ka baxaan oo wadanka China hub fara badan laga soo iibsado si ay biri mustaqbalkooda isku difaacaan maxaa yeelay wadan kasta oo hub haysta maanta haybadu haysta laakiin wadan kasta oo hub haysan waa lagu handadaa lacag badan laga qaado marka waxa sheegtay oo marka la fiiriyo saanqaleeto in hubka reer galbeedka waa markii saddexaad fashilmayaan oo Ukraine hore u fashilmeen oo Israa'iil oo difaaciidu aragtay in Xuutiyiintii markii la dagaalamayeen iyo qaso kala dagaalada ka socday in difaacida la arkay in gudaha Israa'iil in hub ku soo dhacay la duqeynay marka awoodii Mareykan iyo reer galbeedka dhigi jireen macnaa awoodan u leenahay in waxba ka hortagno had muddo in meesha ka sii baxayso oo marka dal loogu bardhigo Shiinaha markaad fiiriso dhinaca kale hadda Hindiya iyo Pakistan inkastoo sheegtay in wada hadal uu ku soo dhamaanayo arintooda dhinaca kale Turkiga laftigiisa waxa leeyahay in qayb ku ahaa oo hubka diyaaradaha ay isticmaashay droniska qayb ka ahayd Pakistan maxaa ka jira intaas waa jirta diyaaradaha ugu badan ee Pakistan isticmaalaysa qayb kamid ah waxa uu ahaa diyaarada laga soo gaday dalka Turkiga sanadihii u dambeeyay wuxuu aad ugu hormaray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ah isagoo wacdaro badan dagaalo kala duwan oo Azerbaijan Ethiopia meel dagaal ka dhacay meelo badan adduunyada dagaalkii Suudaan ka dhacay oo dawladda Suudaan xukunka lagu soo celinayay marka diyaaradahaasi qayb ay ka ahaayeen Turkiga waa tahay waxaan u gudbi doonaa qodobkeena labaad oo aan ku eegayno heshiiska Trump oo la galay Xuutiga iyo waliba Israa'iil oo leeyahay arintaas way ka xumaatay marka imaano dhanka Xuutiga sida la socoto waxa leeyahay Trump heshiis degdeg uu gaaray oo dhanka Xuutiga arintaasi oo fajac ku noqotay caalamka oo soo jeedis maxay kula muuqataa